كل مسؤولين تيجي هالك فردنا هو مسؤولين تي حزب الوطني أنا جاي صاحب كي عثمان وحنا نهاي حبناها حزب الوطني وهو وكيل كاه كونيش كدور شوية كقرن كهير قرن وحنا نقول إن إلى ندلس إنه إحنا كلي ما نحمري كوميشن كه iyo halka imika wax marayaan iyo talaabada deen nala gudboona markaanu deen nala haboon inaanu qaadno xubnaha iyagan commissionka uga wakiilka xisbiga inta badan loo yaqaan task force-ka oo kamid ah laba xubnood oo saddex xisbiba ay ku leeyihiin commissionka doorashooyinka qaranka waxaanu idinku yeedhnay inaanu idin cadayno shalayto iyo doraadba gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharax madaxweynuhu wuxuu yimid komishanka doorashooyinka qaranka xaalado badan oo cabasho leh saameyn tabanna ku yeelanaya doorashooyinka ayuu musharaxu kala hadlay komishanka doorashooyinka qaranka shalayna waxay codsadeen in qoraal lagu soo gudbiyo cabashooyinka iyo waxyaalaha uu xisbigu ku codsanaya dee in la yeelaba wuxuu ku gudbiyey qoraal rasmi ah ayuu ugu gudbiyey commissionka waxaa ugu sii weyneed gobolka marood jeecsiba degmada Gebile tirinta codadka iyo xaaladeeda guud oo ma garanaysa runtii aad ugu hadlay musharaxu qoraalkana aanu ku sheegnay iyada iyo qaybo kale oo kamid ah gobolkaba arrintaasoo ilaa imaka komishankii doorashooyinka qaranku tallaabo uu ka qaaday aanu ku soo celinin dee musharaxii hawshiina ay sidii u socotay annagoo ah komishankii dee xubnihii ee u matalayay xisbiga laftayda dee wax war ah oo nalaga siiyey oo la yiri ku wargeliya xisbigii sidaa ma jirtay ilaa saacada aynu joogno sidaa darteed waxaa nala haboonaatay oo nala gudboon inaanu dee ku celino mas-uuliyiintii xisbiga siiba musharaxii xisbiga ahna gudoomiyihii xisbiga inaanu ku celino arrintaasi dee halkay maraysa iyo ilaa imaka inaanaa wax wara dee aanaan ka hayn arrimahan doorashooyinku waa xasaasi haddii arrin laga soo cawdo oo dhaqso wax looga qaban waayo dee wax badan buu saameyn badan buu keenayaa cabashadaasi keenaysaa haddii dee wax laga qaban waayo ama ha aqbalo ama yuu aqbalin go-aanka uu commissionku arrinkaa ka qaata waxay dee inuu ku soo celiyo musharaxii iyo guddoomiyihii oo uu ku qanciyo maanaa filayn dee in hawshuna iska socoto un laysna ma garanaysaa dee runtii sidaa laysu ma garanaysaa dee ignore gareeyo oo laysu dhegamariyo oo dee aanay arrin soo noqon maanaa filayn sidaa darteed waxaanu caddaynaynaa inaanu dee talada ku celin doono musharaxii madaxweynaha ahna guddoomiyihii xisbiga taladuna dee ay markaa iyaga dee u taallo go-aankay ka qaadan doonaan musharaxu arrimaha aan ka hadlayo ee ma garanaysa cabashada ah aad buu u faahfaahiyey oo komishanka doorashooyinka qaranka ugu sharxo ugu balbalaariyey waxyaalaha uu ka cabanaya iyo waxyaalaha ay keeni karta intaba aad buu runtii ayuu u balbalaariyey laakiin dee ilaa hadda waxa aanu isleenahay waa laga qabtay nooma muuqdo sidaa darteed dee go-aankaasaanu anaguna haddii la ku celinaynaa intaasaan doonaya inaan idin caddeeyo عثمان نبل وحده وقدره يسجع. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كوكولا هولكن. وحوية دور الشضاء صدحة تونك بيشة كقب صنطي نفمبا. لبدا كونية تطبيق طبعا كودن سمالا. أو سيدي دي عادة هيد إن ودن كقب صنطي دور الشحوري حلالة. وحنو أرجنا أو صوب بحضي. commissionkuna ay iska dhaga mariyeen cabashooyin badan oo xisbiga wadani u soo gudbiyay
waanay soo kordhayaan mar walba inay doorashadu ka baxday xaydaamkii xor iyo xalaalnimada ahayd inay ka baxday inay ku shubasho baahsani ka dhacday gobollo badan oo waddanka ka mid ah inay ka dhacday sidaa darteed markii aanu codsannay commissionka doorashooyinka aanu ka codsannay in wax laga qabto arrimahaasi oo dib loo eego cabashooyinka oo dib loo jeegareeyo waxyaabaha aanu raadadka aanu hayno waxay kaga jawaabeen aamusnaan sidaa darteed waxaanu hadda laga bilaabo aanu ku wargelinaynaa dhammaan task force-ka inay hakiyaan intaa xisbigu uu talo ka soo saaray annagu waxaan wakiil ka nahay xisbiga shaqaanu wakiil uga nahay haddii ay shaqadii ay u socon weydo si saxa ay u socon weydo go-aanka kama dambaystaa waxaa le xisbiga isagaa go-aan ka gaadhaya musharaxa iyo madaxda xisbiga iyaga ka gaadhaya go-aan laakiin annagu inaanaan shaqada sii wadi karayn unbay tahay inaanu ilantan iyaga ku celinayno iyaguna ay go-aanka kama dambaystaa ay ka gaadhayaan saa darteed laga bilaabo hadda dhammaan task force-ka gobollada iyo degmooyinka waxaanu hakinaynaa saacaddan laga bilaabo ilaa iyo go-aanka xisbigu uu ka soo saarayo inaanu shaqadii joojino waxyaabo badan baa dhacay oo mushkuladaa saa darteed ma sii wadi karno hadda go-aankana xisbigaan ku celinaynaa dhibaatooyinka jira commissionka de waan u gudbinay qoraalaan u gudbinay dacwadeeyaan u gudbinay waxaan u gudbinay inay wax ka qabtaan waxaan u gudbinay inay nala eegaan laakiin ilaa iyo imaka wax nalala eegayna ma jirto waxay ka qabteen oo inoo sheegayna ma jirto sidaa uu sheegay xuseen uu sheegay saa darteed hadda saasaanu go-aan ku gaadhnay xisbigaana go-aanka kama dambaystaa musharaxa iyo xisbiga ayaa qaadan doona waxyaabaha aanu haynana wax fara badan oo baanu haynaa oo ah inay xuduuddii xaydaamkii sharciga ka baxday waxaa ka mid ah in codadka ku jira dhammaantood ay voger yihiin sanaaduuqda ee xisbiga kulmiye looga codeeyey kani waa buugaag waa buug ay soo daabaceen xisbiga kulmiye uu soo daabacay waa buug waana waxa ku jira sanaaduuqda hadda yaalla hargeysa yaalla berbera yaalla boorama iyo meelo badan oo kaleba yaalla saa darteed waa buuggii codaynta lagu codaynaya xaashadii lagu codaynayay wey kuwaasoo miidhan baa ku jira dhammaan waraaqaha d1ka ah natiijada goobta lagu soo qorayey dhammaantood way iswada khilaafsan yihiin waxyaabahaanu leenahay ha la eego waxyaabahaanu leenahay ha la jeegarayo waxyaabahaanu leenahay ha la tiriyo oo dib ha loo eegana taasaa ka mid ah marka saa darteed maadaamaanu annagu howlwadeennadii nahay commissionka uga wakiilka ah xisbiga waxaas markaanu aragnay ee aanu dhacdooyin badan oo kalena aanu hayno insha allahu aan soo bandhigi doono marka ay xilligeeda ku habboonaato ayaanu hakinay waxaananu go-aankama dambaystaana xisbiguna uu haystaa bugaagtan wuu hayaa iyo dhacdooyin badan 1,000 iyo dhowr boqol oo dhacdaanu diiwaan gelinay oo ay commissionku dhagaha ka fureysteen saa darteed doorasho xor iyo xalaal ah uma aragno inay somaliland ka dhacday go-aankama dambaystaana xisbigan ku celin doonaa aad iyo aad ba u mahadsantihiin gobolkan Maroodi Jeex qaybihiisa kala duwan baan u gudbinay in qoraalka iyaga ay ku salaysnayd waxa kale oo u gudbinay maadaama mushkilada dhacday 40% in la jeegareeyo sanaaduuqda gobolada in la dib loo tiriyo oo si random loo eego marka si mushkiladan ay aanu aragnaa markiiba sanduuqa goobta koowaad iyo goobta labaadba way ka soo baxaysaa markay cadaato marka la arko inay mushkiladu jirtana waxay keensanaysaa in dib loo tiriyo dhammaan codadkii dib loo tiriyo si ay u soo baxdo codkii xalaasha ah u soo baxdo waayo xeerku wuxuu dhigayaa haddii waraaqo ka duwan waraaqihii loogu talagalay codeeyuhu ay ka soo baxaan waxa weeyaan waxa laga saaraya waraaqaha baadilka baa laga saaraya kadibna natiijadu waxay noqon doontaa waraaqihii saxda ahaa ee loogu talagalay codbixinta ayay noqon doontaa laakiin kambanigii horena waan uga hadalnay commissionka waanu gaadhsiinay marka horeba inaanu concern ka qabno kambaniga waraaqaha soo daabacay Abu Qurayb inaanu concern ka qabno commissionku way ogaayeen haddana kambanigii waraaqaha soo daabacay baa kuwana soo daabacay oo laga soo daabacay
kambanigaasina waxa weeyaan waa kambani imaaraadka laga leeyahay imaaraadka iyo xisbiga kulmiye xiriirka ka dhaxeeya waa ogtihiin in Soomaaliland ba uu iibsaday kadibna uu haddana ku dacmiyay inuu arrin qorshahan ay tahay qorshihii uu ay markii hore wada galeen ay isla gaareen inuu tahay magacaygu waa Petr Kosa Area TV ayaan ka socdaa arrinta shirkiina jiray miyaan loo arki karin markii la filayo dhawaanay commissionka ku dhawaaqaan natiijada ugu dambeysay inaad u aragtaan in si leedka horeeyo oo aad ku khalkhalaysaan arrinta natiijada ku soo saaray waxa kaliya uu doonayaa waxa weeyaan inay doorashadii dhacday natiijo sax ah ay soo baxdo commissionka doorashooyinka qarankuna uu ku dhawaaqo natiijo sax waxa aanu diidanayna waxa weeye in lagu dhawaaqo natiijo sax ma inta natiijaba la gaarin mushkiladda taala ayaan leenahay waxa laga qabto si ay u soo baxdo natiijo sax ay u soo baxdo anagu natiijo sax ah waa tan doonayno laakiin waxaanu ka hadlaynaa wixii khalkhale ee ku yimid doorashada in laga saaro si natiijo sax ay u soo baxdo laba hadaba kala duwan tilmaamtana adiga doctorku tilmaamay isagu in commissionku bixiyay si khadan uga baxday adiguna inay imaaraadku bixiyeen arrinta badadka ugu yeeray buuggan aad arkaysaan waxa weeyaan waa buug dhammaantii xaashadiisu serial numberkiisu ay isku mid yihiin marka waxa weeyaan commissionka doorashooyinka qaranku buugaagta iyaga gacanta ku hayay muunada iyo waxa buugga uu ka kooban yahay iyo featureska buuggu leeyahay commissionka doorashooyinka qaranka gacanta ku hayay buugga lagu codaynayo marka buuggana waa buug la soo diyaariyay oo lala soo diyaariyay buugaagtii commissionku ay soo daabaceen marka kulmiye yaa gaarsiiyay buuggan inuu kulmiye soo daabacay yaa gaarsiiyay marka waxay noqonaysaa in shuraaka xoogi ay ka dhacday bay ay dhacday Somaliland inay yaqaanaan magacayga waxa la yiraahdaa Dr. Maxamed Yaasiin Xasan waxaan ahaan jiray wasiirkii hore ee kalluumaysiga iyo dekedaha Somaliland imikana ah la taliyaha gudoomiyaha xisbiga wadani musharaxa madaxweynahana wixii la oran lahaa waxa yidhi asxaabtayda halkan fadhida Xuseen iyo Cismaan wax kale oo dheeraad ah ku daraya ma jiro wadankan waxay ahayd inaynu qabsano doorasho xor oo xalaal ah inaynu qabsano laakiin waxa noo muuqatay dawladdu maadaama ay waqtiyo badan dib u dhigtay doorashooyinka waxa noo muuqday in loo soo diyaar garoobayay in doorashada soo socota si yaro fudud looga badiyo xisbiyada mucaaridka ah waxa noo muuqatay in la soo daabacday waraaqihii lagu codayn lahaa buuggan aad arkaysaan maaha buug forgery waa buug asal ah waa buugaagii lagu codaynayay buug walba page wal oo ku yaala waxa ku taala shaabadii ma sheegayo deegaanka uu ka yimi laakiin waa la heli doonaa page kasta waxa ku yaala shaabadda waxa lagu dhufan karaa buuggan marka qofka cod bixiyay uu galo safka la eega kaadhkiisa qofka ugu dambeeya ee gudoomiyaha goobta ayaa wuxuu u dhiibayaa warqadda hortiisana uu ku shaabadaynaya dabadeedna markaas uu qofku la galayaa saddexdaa goobood ee bannaan xisbiga ucud kulmiye iyo wadani saddexdaa meelood buu meel calaamadinaya meeshii uu doonayay waad aragtaan buuggii waxa lagu shubtay goob kasta oo Somaliland ka mid ah waad ogtiin early mar allaala markii la bilaabay doorashooyinka gobol kasta oo Somaliland ka mid ah xisbiga wadani baa hogaaminayay markii dambe ayay la soo baxeen baxaladan iyo sanaaduuqdii ciidankii baa la adeegsaday commissionkii baa la adeegsaday cid walba waa la adeegsaday waa ka doorashadii Somaliland waana bahal dawladdu ay soo commissionku soo daabacay sida uu gacanta dadweynaha ku galo bahalka dawladda commissionku soo daabacay
dee waa wax la isweydiin karo